gabadha diinta la qaado oo dooro haddaad doonaysa inaad liibaantid buu rabbigu yidhi taabaad ku liibaanayay sidii ninkii la odhan jiray anas binu cammaar alasmaci aabihii baa u yeedhay baa la yidhi isagoo aan war ka qabin baa lagu yidhi caroos baa tahay caawa caroos baa tahay gabadhiina waa la keenay reerkoogiina way noo ogolaadeen caqdigii unbaa hadhay gabadhii baa lagu meherinayaa isaa u diyaargaroobo soo maydho uu soo diyaargaroobay deedna markaa berigaa dhallinyaradu aabbihii hooyay ku qanacsanaayeen dhallinyarada zamankeennan madaxa ku socota mooyaane madax maahaba kuwa zamankeennan intooda u badan caqli ay iyo kulahayn bay ku socdaanba kuwani allah inoo soo hadeeyo markaasuu u yimidayo caqdigii oo gabadhii baa loo meheriyey markaasaa lagu yidhi gabadhii caroosadii waata qolkaa kuugu jirtee orada dee waa caroosadaadiiya u tago isbarta oo dee salaamo halkaa caawa dee maaragtaan caroos baa tihiine markaabuu u galay baa la yidhi oo mar alli markuu galay isagu waa nin dhallinyaro ah oo laankaa la eg oo dheer oo qurux badan oo cad iyaduna waxay noqotay inan gaaban oo kuusan oo isaga aanan cajabin nimanka dhallinyaraduna daa'iman waxay iska jecel yihiin gabadh qurux badan oo loo abuuray sida iyaku ay doonayaan inay helaan bay jecel yihiin mana helayaan ogow deedna markuu galay uu salaamay buu arkay gabadh nuuciyadday tahay markuu arkay buu ka naxo uu ka murugooday meel laga laabtana ma joogo dee gabadhii waa la meheriyey aabbihii hooyaana u dooray oo u keenay markaasay gabadhii intay aragtay isaga quruxdiisii iyo dhararkiisii bay tidhi ha murginoo ha murugoon bay ku tidhi waxaa laga yaabaa waxaad ku faraxdo khayr leh oo baraka leh ilaahay inuu caloosheeda kuu soo dhex mariye hadalkaygiibu ku qanco wuxuu is yidhi kollay tan waxa lagugu dooray khayr lagu ogyahay weeyaan iska barakayso habeenkiiba uu barakeeyey baa la yidhi ilmihii u horreeyey gabadhaasi ay ku curatay wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu noqday baa la yidhi imaam daar alhijra imaam ula'imma imaamkeenna shaafici allah u naxariistay macallinkiisii bay gabadhaasi ku curatay gabadh diin baa laga eegay qurux lagama raacin dhaqaale lagama raacin nasabkay ka dhalatana lagama raacin gabadha waxaa laga soo raacay diinteeda laga soo raacay diinteeda fadfar bidaata diini taribad yadaaka waa kii nebigu lahaa gabadha diinta la qaado oo dooro haddaad doonaysa inaad liibaantid buu rabbigu yidhi taabaad ku liibaanayay gacantaada kugu barakoobaysa deedna gabadha diinta loogu soo doortay inanka labadiisa waalid baariga u ahaayee labada waalid go-aankoogiiyo taladoodii dhaafi waaye waalidka u hoggaansamay waxay ku curteen imaam maalik binu anas bay ku curteen baa la yidhi caalim cilmigiisu ilaa yowma alqiyaama adduunka uu yaallo oo madhab min madaahib alarbaca uu ka mid yahay madhabkiisu uu sheekhna u yahay ayaa maaragtaanay gabadhaasi ay ku curatay dad barakaysan laba awlaadoo barakaysan hadday isku tagaan dhal barakaysan bay dhalayaana ogaada marka nolosheenna diin ha ku salayno oo guryaheenna qur-aanka ha ku akhrisanno oo guryahe dhexdoodana ubadkeenna sunnada nebiga ha ku tarbiyadayno oo guryaheenna tacliinta ha ka qabanno oo guryaheenna dacwadda han u furno oo raggeenna awlaaddeenna iyo qaraabadeenna wixii raggana waxaad ku tarqiibisaan ood ku dhiirigelisaan war diinta dadaal xil baa inaga saarane ordo ininkuna qaybtiina diinta dadaalkeega ka soo qaata laana ragga muuminiinta iyo haweenka muuminaadka inay diinta isku kaalmaystaan oo aayad qur'aana bal salaada iyo zakada iyo taacadda ilaah iyo taacadda nebiga waxaa laga hormariyey oo la yidhi waxay isku kaalmaysanayaan gabadha muuminadda iyo ninka muuminka inay ilaahay diinkiisa u gargaaraan oo dadka wanaagga ay faraan oo ummadda xumaha ay ka reebaan oo salaada oogaan ee zakada la yimaadaan ilaahay rasuulka ay adeecaan amra bilmacruuf wannahyi cala almunkar ayaa laga hormariyey salaada iyo zakada iyo taacadda ilaahay iyo taacadda nebiga waayo waa seeskii diinta islaamka in diinta laga shaqeeyo saxaabiyaadkuna diintan waa u soo dadaaleene inankuna insha allahu tacaala dadaalka diinta guddooma oo maaragtaanay guryihiina xalaqada ka qabta oo xalaqaadka haweenku meelaha ay ku qabsanayaanna ka qayb gala oo madaarista ku xidhnaada oo aqaladeena qur-aanka ku dhex akhriya oo hooyadu ilmahayga ha tarbiyadayso hadday inan tahayna beritoole hooyo unbay noqon doontaaye ubadkeenna xagga diinta aan ula kacno haddaan ubadkeenna xagga diinta aan ula kacno waxay ka dhigan tahay ummadda soo socota ina bedeli doontaa ayaan meel wanaagsan iyo dariiq wanaagsan usoo jeexna bay ka dhigan tahay allahana inagu anfaco dembigeennana allaha dhaaf
ذنبك والدينتنا الله داف دينت الله إنه معاني كلكنا الله إنك أقبله waxaan ku hadalay khayr ilaahayna soo dhaxmariyeen anakana ilaahay ikhlaas nooga yeelo oo hanagu anfaco inkana Allah inagu anfaco muslimiinta meel ay joogaan kurbada Allah ka qaado qof walba bukana bugtaanta caafimaad Allah ugu badena ayaa markasto yiraahdaan haddaad kulan qabataan oo culimada iyo macallimiinta iyo madaarista iyo meelaha dadka khayrka isku imanayaan aad ku kulantaan noo soo duceeyay bay yiraahdaan oo bukee إلهي عز وجل وحن رجينا إلهي عافمات سريعة يكن ينوصيه إنكنا وحن رجينا إن شاء الله تعالى مقالذنا نقارسا وليد دادك أف صومالك أكوها الله واسكا وده أهلون بانها مقالذا قريبكم هي واسكا مقالذا يديهم ويانه وحن رجينا إن شاء الله خيرك كم بغضاء يقب حايا ومجلس كيسا دحاد بانو ملين ساكا عن فريسنا صوما وكي أفراد مساجد يلا بقى اسكول يا مدرسة مارتانا معت كان إمام مالك وحالك إيجام مغضى واللي قلنا مقالة كم مغضي صحوة إسلامية الدين جعل وددالية قبل حجابا وأسطورا علماء إسحل قاضي وداقا أرزاق دعودي يا تعليمتي يا مدارستي يا قرآنك أنت ما ماركتاني قيمتو ذاك قادنا يسا أيا ككيني ماركتاني محبدا يكالقا عيلدا يصدادتك أوسوق القوليا waxa ka keenay waa dadaal la inagu bixiyay culimada iyo ducaada inagu dadaalaysa inay dhex socotana waxaan leenahay haddaalinay dadaalka wada oo kordhiya inkana waxaan nagula talinaynaa oo naftayda iyo inkaba nagu waaninaynaa in aan keena maaragtaan isbedel baan u baahanahay isbedel oo gabadha mu'minadu inay barato diinul mar'a fil bayt diin baa jirta adiga ku qaasa oo ku gaara ورجوا أي كل قبل ودين البيت بعلماء ولادان حجابك أيا كمدا أسترك قبض جوري كده كو أسترنانيس أيا كمدا أقل كدحديس تعبك يقبض كدباتك كوسو قاديسا صبر كادو صبر يسد با كمدا سليم رضي الله عنها المهدي مركو كدنتي أبو طلحة وسفر كسون نقضي إسقى أرض يا أبو صقلي لا عنقيك كورن markaa bay ku tiri sidaad kaga tagtay uu ka xasilooni badan yahay bay ku tiri markaa bay ku tiri dharka iska dhigo safar baad ka timide yarna soo casheeyo iska seexo oo habeenkii bay saqdii dhax markay ninkeedina ay raali gelisay ayay ku tiri jaarkaasi dariskeena haddii uu jaar kale uu alaab ka soo carriyaysto oo jaarkii alaabta lahaa ay alaabta naga qaadateen noo soo celiya ma inay u diidaan ba mise wayna u celiyaan markaa bay ku yidhi maya waa inay u celiyaan dee maba lahayn marka horeba iyo ku yahay bal usluubta ay ninkeed wax uga dhaadhicinaysa dhegaysta walaalayaal markaas ay ku tiri haddaba dhegayso abu talxow ilmaheenni yaraa adiguna maan lahayn aniguna maan lahayn allihii lahaabaa iska qaato waa la qaatay oo kaasi adduunyada uu ka intiqaalo uu shafeecay وان أتكست عنو يا وان صبري وان أتكست محي ولاده هو يا أنا هاي معنوه ويان وان كابر جلع سنة هاي أنا جا آيات تعب كوجب بدن المها ويجس سوق جاري أنا جا واحد تعب وبدن كامل سوق جارين ويا سجال بلاد والمه علوشين أو كل حجرة سجال كاب بلاد هو يدوى بين الحياة والموت نلون يجري هو يدوى ده حيسا علمه يرى نبتة أنا جا يجس سوق جاري وانو أتكست وان صبري ميت كيسين واك هالك كودو دوبنا كعيق سو أصبح كتر إسك صبر جامعة ديك صوب حدي كلها تجاوب داس جامعة دي نبي محمد وأساسه بك صوب حدي صلى الله عليه وسلم صبر كالله بري وحال لقد داعي أوبت كان يكو إلي سلحين إلهي أولي هي ومركو دون إلهي وكسين كرو مركو دون إلهي وكان قادن كرو كو دون إلهي وعقلك ودما يستري كرو كو دون إلهي ووالي كرو كو دون إلهي ولحاتك السين كرو كو دون إلهي لحاتك وكقاضي كرو كو دون وحتر وكو صدح مرين كرو كو إلهي سو دون بلا وحتر وكدق كرو ما لي إذا أدقوا الماء إلهي بس كله قاربا وحتر كو يالن كرا قارنا هذا كل بكرا قاربا كو في عنانو بار كو نقون كرا قارنا عاقل والدين بين نقون يا سليم رضي الله عنها نكيد وحي كتري وروان أتكستو وان صبري أدقون علوش أتكستو علمي وكاسك وعيقسو أصبي كتري هلا الكل لقى هلا يا هوين نوع عاصم أنت
oo raggooga sidaa u raali gelinaya mayd aqalkayga ugu dhex duuduuban bay halkana ninkayga ku dul raali gelisay usluubtaana ninkayga ay ku qancisay leedahay iska sabir innagana maanta haweenkeennu haddii uu iska daa hadduu dhintabe bugtaayar haddii ilmaha lagu sheego ayay balaayo u yeedhan oo dhulka isla dhici oo cid walba u sheegi oo cid walba ku cabani oo cid walba ku ashkatooni haddaad aragtid bay yidhahdeen culummadu qof ay masiiba la soo daristay oo masiibada la soo daristay dadka kale u sheegaya haddii la arko waxay ka dhigan tahay ilaahay buu kaga ashkatoonayaa makhluuqiisii ilaahay ma cid baa kaa qaban karta may balaayada lama sheegay waa la sabraa waa la adkaystaa barwaaqada laga sheekeeyaa wa amaa binicmati rabbika faxadis nicmada laga sheekeeyaa mooyaane balaayada iyo masiibada lama sheego umu sulaym radia allahu canha waagii markuu baryay ninkayga maskiidkuu tegay abu talxa markaa buu nebiga u sheegu yihi ilmahayga u saqiiro u shafeecay maydkiina aqalku dhex yaalla umu sulaymna way iga qariso xalay saqdi dhaxay ii sheegtay markaa buu nebigu dhowla caddeeyo wuxuu yidhi acarrastumu leylata yaa abaa talxa xalay caroos ma ahaydoo islaanta ma ag seexatay haa markaana iyadiina aan barakeeye kadib bay ii sheegtay buu yidhi markaa buu nebigu yihi saragiina xalay allah inii barakeeye buu ka yidhi ducadii nebigaa ilaahay u aqbalay wiil bay dhashay wiil ayay dhashay wiil